بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شركتونك بارلمانka mudanayaasha golaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare xubnaha golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada qalabka sida marti sharafta iyo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed meel ay joogaan ba guud iyo dibadba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحي شرفه إن المانت هوري معضو لبضا القرى وكيل هذا يقولتي يمرتزا كلا يسر السبعة وانا كان كتشيديو خطبة دي دستورية هاي لو كون يكويرات ولا ليال sanadkii tagay 2020 wuxuu la kowsaday xanuuno aan adduunka hore loogu arag oo galaaftay marka caalamka oo dhan la eego 2 milyan iyo badh ay u dhinteen malaayiin kalena u jiifto oo ku dhacay waxa ilaahay mahadiya inaga Soomaaliland eraygiisa marka ahaa noo bixinay buu ilaahay noo aqbalay dhibaatadiisu way nagu yaray marka loo eego adduunka waxa gaaray dhowr iyo 50 qof baa inaga dhintay iyagana Allah u naxariisto dad aan tiro badnayn marka loo eego caalamkana uu ku dhacay oo qaarimka oo bukaan kuwana Allah caafiyo hase yeeshee waxa laga dhaxlay waaya aragnimo oo ah in la helay dawo ama talaal laga hortago adduunkuna aad isku mashquuliyay walaalayaal sanadkan Soomaaliland wuxuu ahaa sanad nabadgelyo ay gaadhay oo ay guulad badan u soo hoydeen sanadkii tagay mandaqadan aynu ku noolahay iyo caalamkaba waxa ka dhacay dagaalo lagu reeqday oo adduunka meelo badan ka dhacay dagaaladaasi adduunka ka dhacay waxay muujiyeen saameynta tiknoolajiyadu ku leedahay dagaalada adduunka waxaana dhala rogtay wajiyadii siyaasadeed ciidan iyo dhaqaale adduunka walaalayaal Soomaaliland sanadkan wuxuu ahaa sanad ay ku guuleysatay inay ka heshiiso qabsoomidda labada doorasho ee isku sidkan baarlamaanka wakiilada iyo dawladda hoose waxaan ku soo ururinayaa sanadkan Soomaaliland waxay tirsanaysaa hadmadiisii hore ee xanuunka ahayd oo haratiisu inay qaboobeyn oo Ilaahay naga nabadgeliyay naga mar haddii daldegan yahay oo nabadi jirto adduunka oo dhan wuxuu u tartamaa oo hore u qaada waa dhaqaalaha marka la eegayo dhaqaalaha Soomaaliland marka adduunku isu tirsanaya dhaqaalayaasha dal walba intuu dhaqaale leeyahay waxa la hubaa Soomaaliland waxa lagu tiriyaa dalalka dhaqaaloodu yar yahay ama aanu buurayn sidaa ay tahay haddana dhaqaalaha Soomaaliland sanad walba sanad ka dambaysa uu kobcaa oo waxba ku kordha taasina waxay ku timaadaa dadaalka shacbi weynaheena xukuumadihii iska dambeeyay baacmushtarkeena oo sameeya maalgashi qurbajooggeena oo sameeya dhaqaale dadban qoysas ku masruufaan iyo maalgashi ay dalku sameeyaan marka inta la isu geeyo sanad walba dhaqaalaheenu uu kordha dhaqaalaha dalkeena waxa wada dhexaad u ah 4 tiir oo kala ah dakhliga u soo xorooda hay'adaha dawladda oo kastamada badan ka soo hoyto baaci mushtarkeena oo sameeya maalgashi hantidooda dalka ku maalgeliya shaqaabo ruux sameeya haba yaraatee taageerada dadban ee ay leeyihiin qurbajoog iyo maalgashiga shisheeyaha iyo deeqaha inaga soo gaara dalkan saaxiibkana
dakhliga miisaaniyadda ee xukuumaddu maamushaa boqolkiiba 10 buu ka yahay dakhliga guud ee dalka GDP waxa dalku dhaqaale soo saaro dawladdu boqolkiiba in ka yar 10 ayay maamushaa inta ay maamusho dawladdu boqolkiiba 50 iyo badh waxay ku maamushaa hay-adaha amniga waad ka garan kartaa halkaa dalka boqolkiiba 50 shaqaale iyo amni geliyay 48 ka soo haray waxay u qaybsamaan baahiyaha badan ee dalka oo ay ka mid yihiin baahiyaha asaasiga ah sida tacliin biyo caafimaad wadooyin iyo wax la mid ah ictiraaf raadin deeqaha dibadda inaga soo gaaraa waa kooban yihiin waxaana u badan yihiin mashruuciin tijaabo ah waxaana ugu wacan dowladda xamar ka dhisan oo lugta jiidisa Soomaaliland dhaqaaladeedu inuu horumaro caalamkana inagala dagaalamaysa in dhaqaalo buuran toosan la helo walaalayaal markaynu eegno dhaqaalaha dastuurkiisa ee dalka waxa qeexaya qodobada 11 ee dastuurka oo ay tahay in dhaqaalaha noqdo suuq xor ah in dhaqaaluhu aanu noqonin dalku aanu qaybsamin in hoodana oo lacag dhaqaale barwaaqadu ku ururto iyo in sabool aad u kawiyaala waxa kaloo sheegaysaa in iskaashadaan sharcigaas wuxuu sheegay in iskaashadaan hantida gaarka ah iyo taguud qodobka 12aad oo isna ka hadlaya dhaqaalaha sida loo maamulayo oo dhulka ah oo dhulka dhammaan isugu dhaqaalo dhulka ku soo noqdo wuxuu tilmaamayaa inuu dhulku yahay hanti guud oo ummadda ka dhaxaysa meel u jira mas'uuliyadiisa maamulkiisa ay dawladdu leedahay tan iyo intii aynu dib ula soo noqonnay xorriyaddeena dhaqaalaheena xukuumaddu ay maamushaa wuxuu ku tiirsanaa kastamyada cashuuraha wixii kastamka soo mara ee dibadda inooga yimaada oo kaliya markii COVID-ku dhacay waxa soo baxday inaanu ahayn cashuurta kastamyadu wax qaran isku halayn karo oo dawladdu ay isku halayn karto waayo markii caalamka kala xidhmay ee dal waliba rakibtiisa xidhay kastamyada way xidhay waxna soo jiray cashuuraha aynu qaadnaa ee barigu boqolkiiba waa 22 halkaa waxa ka muuqata dheelitir la'aan ah oo ay ahayd inay dhaqaalaha inta badan ka yimaado dalka gudihiisa iyo cashuuraha bariga oo ayna ku tiirsanaan wax badda iyo cirka ka imanaya ama xadka ka soo gudbaya walaalayaal sanadkiina dhaafay waxa dalkeena la soo gudboonaaday carqalado waaweyn COVID-19 oo inaga hadduu safar noo noqday kala xidhay isu socodkii baaxinta adduunka iyo wixii dibadda cilaaqaad la lahayn oo yareeyay aad iyo aad yareeyay dhoofkii xoolaha la joojiyay sababtoo ah xajkii baa la joojiyay koonfurka dartii ayaa xujayadii laga joojiyay xarabkii xoolaha dhoofayna waa joogsadeen waxa intaa dheeraa ayixii ka dambeeyay ee dalagii oo dhan xaalufiyay sidaa ay tahay haddana dawladdu waxay dhexda u xiratay in wixii guntiga loo geejiyo waxyaalaha laga maarmaanka ee qaranku u baahan yahay miisaaniyadda qaranka ee sanadkii tagay waxa laga maalgeliyay 106 mashruuc oo qiimahoodu dhan yahay 173 bilyan sanadkan imka aynu galay waxa loo qorsheeyay in la maalgeliyo lagu maalgeliyo 273 bilyan in sanadkan mashaariic cusub lagu hirgeliyo iyadoo waxa soo duruufo adag na soo kulmeen waa la kordhiyay maalgelintii mashaariicda deeqaha dibadda ee kala hor aynu helnay waxay ahaayeen qiimahoodu 164 bilyan oo Soomaaliland shilin waxa la kordhiyay shaqaalaha dawladda sanadkii inaga tagay 10% saddexdii sano tagayna waxa la kordhiyay 26 tirada la kordhiyay waa 5150 inkastoo xukuumaddu dadaashay oo shaqo qaran dadka laga qaatay ee soo maray badankoodu
haddana waxa ay muuqata duruufaha marayna awgood dadka la qaaday la shaqo galiyay inay yihiin dhibic marka la eego inta shaqada oo aanay boqolkiiba 10 ahayn dhalinyaradii shaqada u baahnayd culayska intaa leeg wuxuu u yaallaa sidii loo xalin lahaa dhammaan in la isugu tago oo weliba qayb weyn uu ka qaato suuqa xorta walaalayaal iyadoo oo duruufaha aynu soo sheegi jireen waxaynu ku guulaysanay in shilinka halkiisii ku nagaado 3 sanadood oo aanu dhaqdhaqaaqin isla markaana sicir bararka inflation uu hoos u dhaco 3.5 boqolkiiba Somaliland waxa ka jira 4 baan oo gaar loo leeyahay 4 baan lacagta taala ee shicibku dhigtay ee dhigaalkii waa 200 oo milyan waxay deyn u bixiyeen ama mashaariic amaahiyeen 70 milyan waxa lacag dhigaal taala baanankooda 130 milyan oo aan ka qayb galin wareegii maaliyadeed ee wax soo saarka lahaa haddii lacagtaasi ay wareegin lahayd warshadana waa abuuri lahayd isbitaalana waa dhisi lahayd shaqo abuur way keeni lahayd marka in kastoo duruufahooda gaarka ah ay yihiin baalankeenu oo korayaan oo dadka la mid yihiin haddana waxaan ku dhiirinaynaa in ay maraan habka ay ku shaqeeyaan baalanka caalamka ah ee private oo ah dhigaalka la dhigo lacagta la dhinto 90% ugu yaraan inay ku bixiyaan deyn oo dib dadka u galiyaan si wax loo soo saaro xagga beeraha inagoo og talaabooyinkii hore la qaaday sanadkan waxaa lagu soo kordhiyey macadka cilmi baarista beeraha markii aynu dhowr jeer 3 sano hore kolba meel gelinay mashruuc xaaxi beer wajaale mar walba waxa soo baxday kolba cilad aynaan ogeyn waxa ka mid ah shinida ama seedskii oo isbedelay waxa soo baxay dulin badan oo ay keeneen cuntooyinka la inoo keenay waxa soo baxay abaarihii istaba jooga cimiladu ay gadiyeen marka waxa loo baahday in si cilmiyeysan loo galo hawsha beeraha marka waxaanu abuuray macadka cilmi baarista oo la rabo wixii aynu maal galeynaa si cilmiyana inuu noqdo goob kasta oo la gelinayo waxa la hayaa imika oo la soo ururiyay 320 nooc oo ah shinidii u ahayd Somaliland asal ahaan cimiladeeda waxaanu abuuri doonaa hadda baanka shinida ama seed bank oo lagu ururiyo dhirta dalkeena ka baxdo oo dhan nooc kasta ay yihiin in la hayo seedkooda si aanu dalka dhirtu uga dabar go'in sida hadda ay ku socoto oo imika dhir badan oo ku ugu qoyo badan la leeyahay shinidoodii xanaanada xoolaha maadaama sanadkan horena koofirku aad u joojiyay macaamiishtarkii xoolaha sanadkan dambana hawshoodii loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagali lahaa adeegyada bulshada barkood ama hay-adaha wax soo saarka xanaanada xoolaha beeraha investmentka maaliyadoodii u qorshaysanayd wax loogu horumari lahaana waxaa loo wareejiyey inta badan miisaanida doorashooyinka sanadkan sida ay tahay waxay talaaleen 3 milyan oo neef oo ay ka faa'iideysteen 180,000 oo qoys xoolo ay lahaayeen bay gaareen kalluunka oo ah meesha adduunyada u guuraysa badda meesha badda waxa la yiraahdaa dhaqaalaha buluuga ah ee badda oo inaan aqoonteedana lahayn u baahannahay in xoog badan saaro waxaan imika la bilaabay muddo dheer kadib oo sanado badan loo hay-adaha qaar laga codsaday ay sanduuqa lagu caawiya laga waday dekada maydh oo hawsheedii bilaabantay oo ay ku baxayso 5 milyan oo lacagta Mareykanka ah waxa dhamaaday wajigii koobaad ee dekada Berbera waxa dhamaaday 400 mitir ee dekada Hawaadey haddii aan la yiraahdo juun awalkeeda sala filaayo
ilaahay kiisa waxa bilaabmi doonta in maraakiibtu soo xidhaan oo uu kordho xawliga dejinta konteynerada iyo bagaashka ay wadada ka duumika inta uu yahay boqolkiiba 760 baa ku kordhi doona Juulaay marka la inta ay la shaqaalay dakhligu ka soo galay waxa kaloo yara la xusnaada ah inta in leeg oo samxada oo dariiqa yar ee dhubara imika la wado ee berberiyo u dhaxeeya wajaale uu noqon doono baabuurta culus wadaas hayso oo yar waxa loo baahan doonaa wadooyin badan marka horeysa waxa ka saaran qaata in hore loo bilaabo wadada burciyaha isku xidha si loo kala duwo xamuulka dekada ka soo baxaya iyo baasajarka dalka isku xidhaya oo hawl degdeg weyn oo taala waxa kale oo u baahnaan doonaa waxa kale oo qorsheedu sugi doonaa xamuulka ka baxaya dekadu inuu meelo badan oo xadka ka baxo wadooyin badan oo u furan dalka jaarka nahay sabayntooda iyo dawladda jaarka inuu kala heshiino si aanay u noqonin culayska dekadu mid xidhma oo wada qura ma xaji karto 450 kun oo container guridooda iyo soo celintooda hawsheeda oo garan kara sanadkii gaadiidka u baahanayso wadooyinka u baahanayso meelaha ka baxayso yaro waa qorshayaal degdeg weyn nagu soo kornay oo gacanta lagu hayo haddii alla yiraahdo sanadkan soo socda waxa la furi doonaa Juulaay ama September u dhaxaysa waxa hawl gali doona garoonka caalamiga ee Berbera oo noqon doona garoon baasaanjar iyo xamuulba ay iman doonaan diyaaradaha qaadka weyn oo ugu culculus iyagu oo intay ka qaadaan Berbera xamuulka u gudbi doona Afrikada kale hadda meeshii ay macaamil yeeshaan dadku ismihii wadada Berbera corridor halkii waqtiga loogu talagalay ka gaariyay sabab kasta haatee laakiin hadda inta dambe xawligu ku socdaa isaguna waxaan isagana haddii la yiraahdo sanadka soo socdo 20 qaybtiisa hore u dhamaado waxaan dhagax dhignay iyadoo aan arkayno duruufaha ay u baahan doono wadooyin fara badan si la isku xidhay magaalooyinka gobolada waaweyn bariga galbeedba oo qorshayaal badan oo markii hore barnaamijka xisbiga ku jiray ah haddana kolba kii la qaadi karo loo bilaabayo la isku xidhay oo la bilaabaya wadada isku xidhay loo cadeeyo warama oo u maalgelinaya Banka Afrika hadda waxay bilaabeen sahamintii ama survey oo qaadan doona muddo sanad ku dhawaada marka survey dhamaada insha Allah taasina way bilaabmi doontaa waxaan filayaa in sanad iyo 2 sanad gudahood ku dhamaato waxa kale oo bilownay wadada isku xidha Burca iyo Oodweyne haddii la yiraahdo oo iyadana imika hawsheedii la bilaabay oo ay filayno inay muddo gaaban ku dhamaato waxa dhamaatay oo 200 kilomitir oo qura ka hareen wadadii Burca Ceergaabo saddex bilood soo socota haddii aynu ku dhamayno sanadka bartankiisa waxay u wareejin doonaa muddo xoogeeda iyo xoogeeda iyo quwadda wadada dadka shaqeeya waxa loo bedeli doonaa inay isku xidhaan Burciyo Berbera si loo yareyn karo culayska ku dhacaya wadada Berbera iyo xamuulka ka soo baxay waxaa la dhisay wada isku xidha madaarka iyo magaalada Laascaanood mudanayaal iyo marweyn dawladdu guud ahaan waa amni suwaha dalka amniguna waa ka ugu culays badan isla markaana dawladdu waxa ku soo baxsatay inay noqoto shaqa bixiyaha ugu weyn ama shaqa galiyaha dadka ugu weyn runtii taas oo u baahnayd in suuqa xortii sida caalamka ku dhaqma suuqa xortii oo suuqa xortii qaybta badan qaato haddii warshaday tahay iyo haddii maalgelin tahayba waayo lacagtii waxaynu dalka inta soo gashay intii badan waxay ku jirtaa suuqa xorta ama baac mushtarak haddii dawladdu noqoto adeeg bixiyaha ugu xoog weyn oo ah haddii dawladdu tacliintii iyo waxbarashada caafimaadkii iyo biyihii laga rabo inkasta oo ay suuqa xorta baac mushtarak ku jiraan haddana waxaynu u baahanahay baahida dalkeenu u yaala ee arrimaha asaasiga ah inay aad iyo aad loo kordhiyo iskaashiga baac mushtarka iyo xukuumadda arrimaha ku saabsan mujtamaca
oo qolo walba dhaqaale ahaan qaybi ka saarantay adeega bulshada maadaama aynu hore u sheegnay oo miisaaniyadda aynu gelin lahayn adeega bulshada in badan u leexinay miisaaniyadda doorashooyinka wasaaradda waxbarashadu sanadkii hore waxay u xidhay tababar 600 iyo 400 oo macallin bay u xidhay tababar kor u qaadisa sanadkanna waxaa ku jira imika oo bilaabmay intayada la wanaajiyo 670 arday macallin macallimiintaasi waxay u badan yihiin distriyada iyo degmooyinka fog kuwii ka howlgalayay dadka imika la tababarayana waxay u baahan yihiin ardaydii shaqada qaran soo martay ee lagu shaqaaleeyay wasaaradda sanadkan wasaaradda tacliintu waxay dhistay 67 iskuul oo cusub ayay sanadkan qaarkood way dayactirtay laakiin waxa dayactir ay dhulka ka soo qaadeen oo dayactir dhaawac weyn aad u gaaray ayay hirgelisay wasaaradda caafimaadku sanadkan waxay u adeegtay 1 milyan iyo badh bulshada kamida ayay u adeegayeen caafimaadka ee dowladda gacanta ku haysaa waxaa kordhay 12% dadka ay u adeegayso isbitaalada dowladda gacanta ku haysaa waxaa xusid mudan inay fara badan yihiin isbitaalada gaarka loo leeyahay oo hawlo badan qaranka u qabtaan hase yeeshee waxaynu u baahanahay in hogaaminta caafimaadku meel qura ka ahaado waxaynu haystaa dhibaatooyin fara badan oo la xiriira caafimaadka oo u baahan maamul isu geeyo dhakhtarro badan iyo dad gaar ah ayaa lacag badan iyo hanti ay leeyihiin geliya caafimaadka oo aan la hubin inay ka heliyeen kale inay ka soo saari karaan kale iyadoo dadkii gaarka ah lacagta intaa la geliyaan dowladuna miisaaniyad weyn gelisa caafimaadka oo labadaba dhaqaale qaran isku tagay yihiin intaa waxa ka badan inta ku dhacda qofka buka iyo shicibka gaarka marka waxa weeye lacag caafimaad ka socota dadkii gaarka ahaa hantilaashii gaarka ahaa maalgeliyay iyo tii dowladda oo yara baxaysa iyo dadkii bukay oo iyaguna inta in leeg marka loo qaybiyo keeshiyada ku baxaysa in ka badan bixiya tusaale soo qaadanayna walaalayaal caafimaadka waxa inagu soo kordhay cudurro hore inoogu yaraa oo ay keentay isbeddelka nolosha dadkeena dhiig karka kansarka macaanka xanuunka la yidhahdo macaanka waxa intaa dheer xanuunkan buroolka la dumarka ku soo batay oo inantii oo laga yaabo inay 5 jirta 6 jirta oo ay magaleekada buraa taala deetana ay dhibaato ku timaado waxa laga yaabo buraasi inay qaar ku dhalaan oo aan dhibaato lahayn laakiin waa phenomena imika aynaan hore u ogaan jirin ilmeenaan ogaan jirin hore dumarka loo ciidan ogaan jirin marka xanuunadaas oo waxay ugu keeneen walwal fara badan maxaa dhacay marka waxa dhacay dadkeenu inta badan kuma nagaadaan ma aaminaan dhakhtarradeena ama private ha ahaadaan ama kuwa dowladda ha ahaadaan xanuunka se u sheegaan iyo waxay ka baaraan haddana waxaa loo leeyahay 99% qofku markuu dibadda u baxo xanuunkii loo sheegay iyo tilmaamihii looga sheegay halkan ama private ha siiyo ama ka dowladdu ha siiyay inay isku mid noqdaan oo farku la tagay kaas cudurku ma ku hayeen wax ka qabashadii waa timid dadku waxay aaminsan yihiin dhakhtarradeena private ama dowladdu haadee inaanay lahayn awoodii ay ku daweynayeen waxaase la hubaa 99% maanta qalabka aynu hayno in uu yahay mid gaari kara haddii dhakhtarrada loo baahdana isku maamulkii dhakhtarradeena inaynu hubinaa wanaagsan maxaa dhacay wax walba waa suuq xor ah wax walba la baabiska waa suuq xor lama taaban karo caafimaadku waa xor lama taaban karo tacliintu waa xor lama taaban karo marka waxa weeye waxyaalo bini aadmi hal dowlaha u ahaa ee caafimaadka dhakhtarkii haddii aanay jirin tala midaysan oo raaco isku yimaada waa la lumaya sanadkan inta soo martay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland dhakhtar dibadda qabatay waa 6 kun waxa laga yaabaa inta in ka badan ama la bilaabo inaan soo marin ba wasaaradda caafimaadka marka dadka la eego 6 kuma haduu ka soo qaado oo aad 10 kun oo doolar ku fata kharash ka baxay in diin Turkiga bay tagayeen de sanadkii waxay noqonayaan 60 milyan oo doolar 60 milyan oo doolar waxaan ku dhisi karaa ama ugu yeeran karaa caafimaadka dhakhaatiirta iyo qalabka adduunka ugu sareeya marka maxaa dhacay hantidii waynu haysanaa taladii maamul ayaynu u baahan isku xidhno waxaynu ka fahamnay khalad suuqa xorta dowladdu dastuurka faraya ma faragelin karto suuqa xorta laakiin suuqa xorta facilitator dowladdu waa inay kala hagtaa dadka
hadduu baacimta leeyahay hadduu tacliin hadduu caafimaad dowladdu weyne kala hagtaa oo shuruucda caqabada ka soo baxaya ayay xukuumadduna fulinaysaa maxkamadduna kaga qaadaysaa waa inuu sharcigaas dadka kala hagaadee laakiin hadduu dhakhtarkii baraafitka ahana cid xukunta waayo kii dowladda hana meel maro qofkii bukaanka hana meel dhexa kulmo war khasaareenisa uu ku baaba'aya markaa sharciyadiina waa la hayaa baarlamaankiina waa joogaa xukuumadduna waa fulinaysaa dadkii aqoonta dhakhaatiirta baraafitkana way joogaan isugu tag baynu u baahannahay qofkii oo dhiig baxay qofkii waxaa la geenaya cisbitaal gaara waa lala soo rafanaya xanuunkiina waa kusii fidaya kharashkiina wuu ka baxaya ku kalaa la geynaya 9 egisreeyo u baahan baa la marinaya wuu ka soo baxaya markuu dhamaado waxa la leeyahay dawladda geeyay iyaga Australia waxa leeyahay kabacdi waxa la leeyahay dhakhtaradina guduhu waxbay ka waayeen hal la qaado qofku uu dhinto cudurku ku sii fiday waa mar kala dhacay dhaqaalihi halkan uu kaga baabay marka la doonaya aqli bay baahan tahay dawladdu way furan tahay inaan loo baarlamaan u soo jeedino dadka u soo jeedino inaan xoogaa mideynay aqliga ayaa aqoonta taa caafimaadka intaasaan ku dhaafayaa xagga biyaha sanadkan waxaa la qoday 24 ceelal dhaadheer ceelal badan oo dhowr boqol ka qodan dalka haddana marka biyaha iyo abaaro yimaadaan waa biyo la'aan taa lafteedu waxa la mid ah tan soo sheegay oo kale oo dhibaato badan baa ka jirto marka ceelkii la qodo deegaan baa lagu wareejiyaa 90% meelaha fog oo dhan marka lagu wareejiyo deegaankiina si fiican u maamulaan bil walba dawladda wasaaradda biyaha miisaaniyadda inta loogu talagalay 3 bilood oo waxa ku dhamaataa dayactirka deynagooyinka ceelkii baa la qodayaa deegaan baa laga imanayaa dadkii ama aqoon ma laha ama uma arkaan waxa kharibi kara wixina waa system waa electric waa mechanical hadda imika aynu joogno oo abaara dhaceen dhowr iyo 20 ceel baa wigi u dambeeyay loo qaadayay deynagooyin waxay u baahan tahay inay wasaaraddu gacanta ku hayso ceelasha oo loo tababaro imika 20 qof oo horeeyay baa la tababaray oo ceelasha lagu tababaray iyo deynagooyinka iyo dabka ceelka si loo ilaaliyo inuu tago in ceelka halka lagu hayo waxa laga codsanayaa inay la gaarsiiyo waliba golayaasha dadka deegaamada ka wakiilkatiin inay u fahmaan ceelku inuu u baahan yahay dad gaar iyo aqoon gaar oo inaan ka baxay mar walba maanta u kul ceelasha fadhiya bariga galbeed waa laga sameeyay halka waxa ka jira dhiig bax badan oo farsamo aqoon la'aan waxa la qoday committee ceelo gaagaaban sanadkii tagay haddana marka ay soo qayrada bilaabanto biyo la'aanta ceelasha waxyaalaha qaarkood waa inaynu ka lahaanaa wax meelyaal oo ra'yana ka iska ogolahay abaartu way soo noqonaysaa dalkeenna waa la yaqaanaa 4 bilood jiilaal baa jooga ilaa abiya oo uu soo noqonayo dhaqaana haddaynu dhulka ceelal ka qoday waa ceelasha leelay socda halkan dawladda hore kulmiye abaartii dheerayd iyo culimadii iyo baayicmusharkii bariga kaalbeelis tagay waxay soo iibiyeen bariga in toban bood qabtaa qabtaa waayo waa dirawal xilkasa iyo gaarada actiray laba kala togdar ku jira iyaguna imika muddo bil ah inta in leeg bay socdeen kuwii kale hadda waa loo kala diray gobolada marka waxaan u baahanahay in ceelashan deegaanada ilaaliyaan dadka u tababaro aynu ogaana inay abaartu ka mid tahay nolosheena marka quraha dhawaaqana aynaan dhawaaqin inta waxaan ku dhaafay arrimaha bulshada amniga dalka mudanayaa dalku maanta waa amni nabad taamin ku jira waa ilaahay mahadi taana waxa keenay dhammaan shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba iyo shaqo uu hayo iyo da uu yahayba
waxaa hubaala inuu shacbiga Soomaaliland maanta dhammaantii ka midaysan yahay inuu nabadgelyada ilaashado wixii khilaafana si miyir qabo ku dhameeyo waxa la xurgufaha oo dhan dadka ayaa dhameeyay dawladdu waxay ka ahayd fududeey isugu yeeridda shirka qabashada waxa awoodda iyo juhdiga galiyay wixii oo shirxaay soo dhacay sanadkii dhaweyto oo ugu dhaadhaarayeen kuwii ala cadeeyay waxa dhammaantood lahaa dadka deegaamada oday dumar sheekh dhalinyaro oo ka midaysna in wax kasta oo dhibaato jira si nabad loo dhameeyo waana ilaahay mahadi waana talo wanaagsan oo helay guul weyn ku gaadhay difaaca dalka Soomaaliland waxa ilaahay mahadiya inay leedahay awood ciidan oo aan la dhayrsan karin iyo ciidan birlab ah geesiyaal ah waay arag ah naftood hurayaal ah soo majeestayaal ah oo maanta nabadgelyada dalka inuu cadow soo hunguriyo ka hiray iyaga xoogoodana dadku ku hurdo baayac mushtarka iyo siyaasadana difaaca ay noo hayaan aan ku wadno shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliland abaal aan la iloobi karin buu hayaa hay-adaha dawladda hadduu baarlamaan yahay haday maxkamad tahay hadday furin tahay dhammaantood wax kasta oo dawladda la bilaabayana mudnaanta koowaad waxaa kale ciidamada amniga iyo ciidamada qaranka amniga siisaba caalamka imika waxaan u kala qaybinaa loo kala qaybiyaa waa laba cilmi ayuu kala leeyahay cilmi waa difaaca qaranka waa ka xooga iyo nin walba intuu taal hay mid murdiriyale iyo mid dayax wax ka soo tooganaya iyo mid warar haysta nin iyo taalkii mid waa ka ciidanka u daafacay nabadgelyada dalka u daafacay deganaanshaha kale amniga kale waa ka weynka oo waa ka ah dalku muxuu nabad noqdaa markay bulshadu degantaysa aaminto haddaanay bulshadu deganeyn dalkaasi amni maaha dalka waxaa lagu qiyaasaa amniga markaad eegto labada guryo jaalka ah inay wax wada leeyihiin oo is aaminsan yihiin labada magaalo ee isku xiga inay isku mid yihiin oo si sharci wada arkayaan oo si dambiga wada khilaaf ku wadajiyaan laba gobol haddaynu si ka wadan laba beelood marka ay ka midaysan yihiin isla ogol yihiin khilaafka bini aadmiga ilaahay buu abuuray nabad waxa ku timaada markay ogol yihiin khilaafka si loo xalinayo alxamdulilah inagu inteena dhammaanteen ilaahay wuxuu inuu maray diinta islaamka oo ku wada dhaqmo oo sharci khilaafaadka ay noqon maamay qoyska iyo dalkaba iyo sharci kastoo yimaado hase yeeshee bini aadmigu isagoo oo inta ilaa iyo intii diinta islaamka soo baxday uu haystay oo ku dhaqmayay meel uu joogaba haddana khilaafku maalin uu jiraa dadku la nool khilaaf marka qolo waliba say u xasilayso isdhexgalkeeda ay ku tahay waxaan u aragnay marka arrintaa la eego in lagu xalli karaayo in bulshadu ay hesho xaqsoor cadaalad taama ilaahun baa gaara bini aadmigu ku dadaalaa inuu cadaalad gaaro laakiin waa bini aadmigu laakiin halba intaad dadaashay ku xiran tahay deganaanshaha dalkaaga iyo sogolaashaha marka afar tiir haddii aynu eegno ayaa ah inaynu dadka uga garsoor koow waxa ka ah oo ay ku fadhidaan nabaddu waa cadaaladdana waxaynu haysaa waaxda garsoorka oo culayska u badan ku dhaca ka soo qaad askariga qofka wax dilaya qabta ka soo qaad ninka dambiga soo oogaya baaraya ama inta baaraysa qofka dacwadda oogaya qofkan waa dambiilo qarankii iyo dad buu dhibay leh ka maxkamadda gooynaya ee intuu eego wixii loo keenay ku kala jaraya bulshadeena boqolkiiba 90 qof u mahadnaqa qofka gartaa soo ooday haddii tiisa yeel waay ma jiro qof walba uu ka cabanaya way tiisa yeel waay taar bulshada kuma dhaqmayso waxaan hore u ahay inagu aan dawladaha la yiraahdo inaan ka garsimo laga helaha ma qaatay hadda way ugu banaayeen laakiin ma waxa taala baxa qaadan karta iyo caaqlay qaadan maayo waana dulmood ka qaadiyo halkii loo dhintay askariga baa lagu qalbay dadka xilka haya waa la wadaariya ilaa askariga hore soo bilaabo kiiska ilaa xaakimka u sareeyay maxkamadda sare markuu kiiska lagu dib u dhaartay وهلا عدالة إلا رشق إياها أداها قرصورك وبناد بو قدام كرا قف قدام ولا صح كرا ما هي وين وبناد لكن بقولك بس 19 وحلايا بقولك بس 60 أنت بدنا صحيح تاسوان
halkeena noo garsooraya haddaba waa yahay garsoorkii inoo weyn soo taagno waxnu garsoorka u qaado war isku raacay haddaba garsoorkii muxuu inoo qaadaya gartuu inoo qaadaya maxay noqonaysaa saddex meelood buu binaad ugu baahan yahay inoo garqaado kow tawra waxa weeye fursadaha laba fursadood ta dhaqaalaha iyo ta waxbarashada binaadamku wuxuu ku kala waxbarasho iyo dhaqaale iska soo marka waxay dadkii dalka waa inuu fursadaha shaqada iyo fursadaha waxbarashada u sinaada waxaanu u samaysanay tii shaqada dawladdu waxay bixiso oo dawladdu imika ta ugu weyn shaqada dadka siisa ama qadaraasada bixisa waxa loo baahan yahay oo aanu u jideynay oo aanu soo marnay 3 sanadood guddiga qadaraasada waa inay dhisantaa oo guddi adag noqotaa oo wixii la iska daba tagtaa waa la kori doonaa laakiin wadaynu helnay oo waynu mahadinay waxa laga rabaa baacmushtarka gaarkiina inuu u maro hantida uu dhisanayo iyo wuxuu bixinayo in loo sinaado oo kaas koo loo maro oo sharciya haddii dalka shirkadda lacagta leh mashruuc ay dhisaysa isagu maamusho kaliya dee dadkii bulshadu waa inuu gaara isagu waa bini aadmi meel dhexoo laga waara kara wala jirta la maraa oo loo maraa shaqada shaqada kuma lahayn laba waa tacliinta dawladda wasaaradda shaqagelinta iyo hay'adda tacliinta labadaba sharci waxay ku qabaan in tartan furan oo aqooneed oo xaq loo maro wixii ama course la tagayo ama qofku shaqo ku galaayo shaqada dawladda uu dooranayo inuu aqoonta ku meel maro ayay labadaba mariyaan oo idaacada laga baahiyo TV-ga laga baahiyo si aan qarsoodi u noqonin oo qofna wadato labada hadii la helo labada marka la sugnaado dalka cadaalad waa helay ta saddexaad waxa weeye in dadka nugul ama laxaadla ama faqriga ah ama si kale u taag daran in xukuumaddu ay awoodtiiso oo ay caawiso oo aan lagaga tegin dadku waa nugul oo qura dhibaatooyin badan baa jira dalkeena inta badan waa nugushi afkana inta badan oo laga idhaahdaa laakiin xukuumad ahaan iyo dad kale waxay naga saaran inaynu hubinno in dadkaasi wixii ay mudnaayeen la gaarsiiyo xukuumaddu dhib kasta culays kasta oo saaran waxay qaaday sanadkii hore inay dhaqaale taageero gaarsiiso 200 kun oo qoys oo danyar oo gobolladoo dhan waxaanu ognahay dhaqankeenu inuu hablaha iyo nimada u kala exdo oo hablaha intooda badan iska wadaash xitaa kuwa laxaadka qaba kuwa laxaadaanaya ku dhacdo aan ciidan iyo guriga lagu xiro wasaaradda shaqagelintu iyo qoysku sanadkii dhaweyto waxay tababar u furtay oo xirfadaha ay ku shaqeystaan ay gaarsiisay 8,976 hablood oo Soomaaliland oo gobolada dhan waxay gaarsiisay deeq raashin in ka badan 70 kun oo qoys oo barakacyaal oo gobolada dhan wasaaraddaasi dhaqaalaha kii dawladda ay u qorshaysay waxa kaloo dheeraa oo ay naga caawiyeen dawladaha saaxiibka la ah iyo UN kuba in ka badan dhaqaalaha lagu taageeray dadkaasi iyagana waa baahnaaqayna qodobka saddexaad ee bulshada nageyn kara degid kara ee nabadda lagu helayo waxa weeye maamul wanaag oo ah waxa la maamulayo ama shirkad gaar loo leeyahay ama dawladda haatee inuu noqdo maamul la wada arkayo oo dadku qacsiin waxaan ku dadaalnay inaanu hawlgelino hanti dhowraha iyo xisaabiyaha iyo inta ilaalisa hantida dawladda iyo waxay dawladdu maamulayso sanadkii dhaweyto hanti dhowrku wuxuu baaray 270 hay-adood oo dawladda ah inkastoo sharcigu dhigayo shirkadaha waaweyn ee qalabkuna hanti ay yihiin la baara ah wali heerkaa maynaan gaarin waxay ku ognaayeen xukuumadda qudurta ka adkaado 270 waxa la soo eedeeyay 30 mas'uul oo dawladda u shaqeeya oo hadda u eedeysan lunsi hanti qarneed wixii kaga cadaadana ay helayaan waxa la soo celiyay lacag gaaraysa 5 bilyan oo ka maqnay khasnada dawladda mudana yaariye marweyn
inkasta oo aynu ku dadaalay bulshada waxa ay ku nugaan lahayd oo qodobada soo sheegay oo meelahaas oo dhan la abaaray si bulshadu nabad ay u degno ugu nagaado haddana wali fardiyada dalkeena ka dhacaa marka tirada loo eego way badan yihiin haddana wali fardiyada dalkeena ka dhacaa mudanayaan way badan yihiin sanadkii dhammaaday maxkamadaha waxaa soo gaaray 4824 dacwadood maxaakiimteena tiradana waa taqaaneen iyo shaqaalahooda waxaa ka badan inta meelo kale oo ama xeer geed hoostii ama wadaadada diinta islaamka shareecada ay gaar u qaadeen oo dadku qanceen oo laga yaabo in inta ka badan tahay dacwadaha dalka ka jira dacwadaha intoodii badnayd boqolkiiba 80 iyo dheeraad way dhameeyeen maxkamadu waa ku mahadsan yihiin way ka garsooreen inta hadhayna sanadka inta soo dhameeyay waxaanu qoraynaa in dadaal badan galeen maxaabiista inoo xirmay marka tirada dalkeena loo eego way badan tahay waxa xabsida maanta ku jira soo waxa saaka 2904 maxbuus tirada aynu hayna waa tahay waxay u badan yihiin intood badan dhalinyaro aan gaarin oo qiyaas karta hawsha xeraad oo la qarinayo oo qoyska u qaba taabuu balaa dhacday oo aanay soo saari karin wixii dhacay qofkii ku dhacay nasiib darrada waxa weeye gabadhii waa la hayaa oo waxa leeyahay gabadhan ilmaysa waa way dhiftay laakiin ninkii waa libaax laba hayo u qaynaya cidina dooran mayso yar oo shaqada kale oo baahan dan lahayd golayaasha qaranka oo isu dhan maanta maxkamadda waa fadhida inuu arrintaa xoog weyn saaro si looga hortagi lahaa waayo waa waxayna dhaqan u lahayn waxaan u badayay magaalooyinka inkastoo miyiga uu jiro kiiska labaad ee u baahan inaynu aad iyo aad uga feejiraan nagu soo kordhay waxa weeye mukhaadaraadka waxa u xidhan baayic mushri ay ka baayic mushtareynayeen waxa la yidhaahdo mukhaadaraadka 535 qof oo boqoloo dhan maaha ku cabaya waan ku celinaya waa inta ka baayic mushtareynaysa ومصيبة لو جاهي نسوي قالوا والله قرطه أولين نسوي بدرس صد حذاكيس وحيو باهي لما ذاكيس إن تبقوا في السنة سنروح وشيل هلا قرطه لها لبا كسدحات وبابورت سنة كان دعوة بابورت شركة دعوة صدح بقول يلا إلى بقول خف بخمرت تركبه ogaada koofurku wuxuu laga diray kontameeyo baabuurta wuxuu laga dishaa boqol eerisku wuxuu laga diraa waxa boqol ka yar baabuurta boqol bay laga dishaa dhow waxaanu baahanahay dawladdu ama wasaaradda hawsha ku leh taraafikada iyo gaadiidka in badan baan korin xataa waxa uu gaarsiinay gaariga limidkiisa in la xiro oo mashiin la saaro ay dawladdu lacag bixisay waxaanu gaarnay in baabuurka wasaaradda wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama xafiiska warshada uu og yahay baabuurku meesha marayo waxaanu soo saaray qalabkii lagu ilaalinayo baabuurta ee markuu soo dego baabuurkan ma socon karaa mise bixi karo intaba waa soo laba sano dambe waynu ku gelinaa laakiin maxaa ka bedelan dadka ma bedeli karo dadka ma bedeli karo gaariga ninkan cid u dhiibayo baabuurta waxaas weyn badankood waa gaar baa loo leeyahay ama waa baac mushtar haddii la soo eego khasaaraha dawladda berigii hore dawladdii hore aan soo gaarin dawladdii hore intay la midka ay soo gaadhay waxa loo jiray maqaadirtii war maanta ciidanka maqaadir marax buu noqonaya ciidamada wax jira way yar yihiin maqaadirtu waa private waxay bayday baabuurta wada private baabuurta ay baabuurta baacmiska weerta
weliba ku baacmisha waxa ka soo baabuurta gaarka loo watay yaryar baabuurta kaleynaysa mas'uuliyadda waxa leh cidda baabuur kale iyo ubadka wada iyo qofka loo dhiibay wacyi gelin baynu baahannahay guriga ka soo bilaabanta oo la ilaaliyo dadka naftooda la ilaaliyo si aynu u yarayno shilalka iyo xabsiyada waxay u baahan tahay inaynu saddex qodob eegno qaran ahaan qorshahoodii dowladdu way soo dhigtay NDB-gaas ku jirtaa sanad 2030 halkay dugsanayno waxa ugu horreeya inaynu saboolnimada hoos u dhigno saboolnimada inaynu hoos u dhigno mar walba aynu ka hadlayna astoo kaa sameeyo su-aashu waxa weeye waar hoos ma u dhigi karnaa ha lacagta dalka soo gasha ama xoolaha dhaqdaha haatee sakadeedu haddii la isu geeyo si fiican loo maamulo sanad walba 10% hoos u dhigi kartaa isxisaabiyeedu inuu isxisaabi haddii dowladdu lacagta haysta ku waajibtay waa ta ay ugu shaqeysaa adeega oo banaanka taala idinka ay gala xisaabtamaya oo abba golayaashii hanti dhowrka baaraya idaacadda martaa kajaraadka faalaynaya mucaaradka hadaba taagan hantida qaranka dowladda 10% bay ka sheekaya 90 kale qaranku haystay barkad leh ee xoolo leh ee taajir leh ee doomi kalluun leh waxay u baahan tahay in la fikiro oo la isu geeyo hantida dalka qaranka joogta in loogu tala qayb kamid ah in lagu yareeyo faqriga sii kordhaya ee carruurteedii 500 wax ay ugu xiran tahay baacmiska mukhadaraadka boqoloodu dhanayaan baabuur iyo taraxum mas'uuliyadda koobaad xukuumadda ee golaasha saaran tahay iyadoo qorshaana waa la idin keenaya golayaashaana ka daawada doona dadweynena waa inay hoggaansamaan talabaad waxaan u baahannahay wacyigelin dhibaatooyinka iyo solutionka iyo sida loo xaliyay aynu soo dhignay waxaynu u baahannahay inaynu galno tabliiqi dadka aqoonta leh sheekh iyo professor PhD sita iyo ilaahay aqli siiyey iyo abwaan inaynu dadka ka waarayno dhibaatooyinkan inagu soo isboorada khatarta sida maandooriyaha iyo kufsiga iyo wixii la mid ah saddex xukuumadda waxaa ku waajiba inay xoog dheeraad saarto la dagaalanka xashiishada kufsiga iyo dilalka iyo controlka baabuurta dadkana gacan bay uga baahantay waana go'aan waana ku dhaqaaqnay waana qayrada ugu badan gaariga dila 10 qof ee inuu ciyaar wado marka la soo xiro stage intaanu iman suldaankii iyo xildhibaankii iyo taajirkii baa cararaya annaga dambeena adeer iska jira kan dadka ciqaabo marka ay reer gurey ninkii kiiska wala carray wax ku soo تقبلت ولا تعرفوا هسكت دلمنا لما ورد يسوي حق شكت مرجع حيو دمبيله ودمبيله ورجال قليل ورمين بدرو عمدنا توقتين كان الله هيا والله عرّي تينو سكوا عنو وعقلين بينو سكوا بعنا كم ضرر لقو حوتيو وإن أي كعرض كقادة وحيلتها ورن كده الكادة أنا تأكل عفوا دور شويك Somaliland waxa lagu majeertaa oo Ilaahay mahadiyo maanta inay tahay madaqadeena ku noolahay dalka qura ee 19 sano u dambeeyay ay dimuqraadiyad ka hirgashay dimuqraadiyadeena waxa lagu dhaliilaa golayaasha mid dhaafa laakiin taa waxay ka dhawaayin dadka taayna ugu qabsanaya kuwa lacagta lagu dhuraayay ee adduunku taageero ee budgetka badan leh ee malaayiinta la siiyo ee jibcad qurwaxaas la joogto doorasho qura ma qabtaan qof iyo cod ma gaaraan tii qabiilka isu soo uray baa lagu taaglay war hadaan ciidana taageerin oo ciidana aqoonsanayn oo dhaqaale cid lagu siinin oo dhaqaalaha kooban yahay oo golayaashayada iyo systemkayga aan u dejisanay markaanu qabsan karayno qabsano markii muddo dhaaftana aan leenahay sharci aan isla ogolahay oo ku gaadho muddada ku bedelayno wax dhaliila ma laha laguma eedeyn karo hadda markaan lisanska waa qabanayna ayaa waxay aad ka dhigaan way daahsan inta ay daahday may daahina goryaalu ba shaqeyn lahayd dantayada seegtay goryaashu may diidanay ka caane tamartayda inta ku xidhay idinkuna nama yaa caawin dhawaa caanaanta maanta doorashada waxa ka hadhay 3 state waa ilaahay mahadi waa isla wada ogolahay in doorashada baantaa inoo dhacdo waxa kale dhammaanteen isla ogolahay oo inaan isku diidanayn
oo inoo ballana inay noogu dhammaato nabadgeliyo iyo xasilooni waxa inoo ballana qofkii wax tirsada khilaaf tirsada inuu si nabada u doono wixii ka maqan loola garab galo taasaa inoo ballana wixii intaa ka duwan heshiis kuma lihin waa qof qarjax kow maanta ciidamadu waa diyaar komishanku waa diyaar xukuumadda miisaanteedu waa diyaar ilaahay mahadi bay joognaa taladu waxa weeye inaynu si wanaagsan hawsha hore ugu qurux badan waxa sharaxan oo haddii la yiraahdo maanta golaha taagan 900 iyo 93 murashax hablu waa ku yari waana waqti la wada dal walagu soo maray taa isku canaanayno waa wax la baran doono oo socodna laakiin waa ku jira waxaynu ognahay oo maanta Somaliland qof walba garanaya inta dhacaysa ee kursi helay inta kursi u soo baxaysa hadda halkan oo fadhiya dhammaanteen waa soo gol waxa soo bixi doona 3 meelood marka loo qaybiyo meelaha 2 meelood oo dhacaya waxa dhici doona 600 dheeraad waxaan sheegay murashaxiinta lacagta bixinaysa ee dadka abaabulaysa ee jaranjarada adag maraysa ee imtixaanka la maranayo maxaa taqaanaa tacliintaada soo dambi miyaad gashay soo mar miyaad wax lagu haystaa ee meel walba laga soo baarayo ee dhibta intaa la ka soo gudbaya ee xisbiyada dhexdooda ka soo gudbaya ee deegaanada ka soo gudbaya intaas oo hargabayo horta waxaad ogaataa shacbi iyo xukuumad ahaan inaan u hayno dadkaas inay yihiin dad milgo iyo aqoon iyo qadarin iyo xirkasa dadka intaas marxalad soo gudbay sharafna waa inuu hayno laakiin waxa xaqiiqo ah oo xeer inoo ah oo aan isla ogol lahay in ay soo baxayaan 300 iyo 600 ay dhacay waxa inoo balana waxa la yiraahdaa farafayo waa xeer samaysta iyadoo xad cimar la sheega waxa xeer kale inoo sheegaya oo isku talagaleysaa oo intaas oo dadaal maray haddii nasiibku ku reebo inaad qaadto u qaato oo aanad waxaanad xaq u lahayn oo nasiibku ku reebo aanad bulaan iyo bulxam iyo qaylo ka keen waa balan inoo tahay waayo imika waa u tahay dariiqa aad maraysaa khatartu leeyahay qolada kubadda ciyaarta waxay dhalinyaradu kubaddu waa barcad iyo barmadow awrigstaay mootidinka kaliis dee siyaasaduna waa haa iyo maya walaa kursi cod baa kaa doonaya maysanaysaa haa qaado waad soo bixi maya waan kuu diiday waad ka tegi markaa murashaxiintana waxaan u sheegay waa soo weerinaa waa dhici jirtay maanta radikeeda kuma horeyso inaad ku tala gashaan inaynaan bulaan iyo buuq iyo wax ka badan inteena soo xushay ee deegaanada leh ee xisbiyada leh ee golayaasha leh ee xukuumadana waxay nagu waajibaa qofka xaq uu leeyahay ku doodaya inuu si nabadgelyo ugu doono oo lagu hubsaday uu xaq leeyahay kale qofka qarda jeexaya ee qofka fadlan in la qabto oo la wad gardartay joog ayaa inoo balana taas uma ku arkaa nabad taana intaas kaga tagay arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland mabdi'iyan waxay ku dhisan tahay nabadgelyo iskaashi iyo wada qabsi caalamka oo dhan iyo dariskaba soddonkii sano u dambeeyay fagaaro kasta oo taganiyo dawlad kasta oo hadala waxay nagu xujeynayeen ama ay nagu gudbayeen xaalkiinu waa xaal Afrika midowga Afrika iyo Afrika ayaa anaga nooga farquluwan qaaradda tagtaaba ama daacada ka ahaato ama gar ha ahaatee muddo taal lagu horjoogo saadartay waxaanu qaaday jidka ah in Afrika laga hawl galo deetana sanadkii u dambeeyay xoog badan baan saaray Afrika san ugu yeeran lahayd saaxiibo cusub waxaan ku buurisanay inaan dhammaan dawladaha Afrika horta waraaq qoraal ah oo u sharxaysa Soomaaliland waxay doonayso iyo inay xaq u leedahay ay ku cadahay inaan u diray dhammaan madaxweynayaasha geeska Afrika meel jooga dhammaantood ay heleen waxaan naga soo noqday in naga aamusto waa jirtaa in badan ayaa naga soo weydiisay macluumaad inta ka badan oo u baahatay tafsiir badan in loo soo gudbiyo saaxiibo ku qancay ama hore u ogaa inay Soomaaliland xaq u leedahay aqoonsiga dawladoodana aanay ahayn doos iyo waxay ku fadhidaan
in badan oo ogeyna taageeraynu ka helay walaalayaal waa ogeydeen marka aynu safar u baxnaba colaadda xamar ka bilaabata taa dib baan kaga hadli doonaa afrikada aynu xudxudanaynay ama aynu u warramaynay waxaynu xoog saaray waxay ku soo dhammaatay oo afrikada ku riixdaa mar walba idinkiiyo soomaalida hadda waxaan ku dhahaa gar ma aha nintiisiiba u taag waayo tashan waaye oo isaga tawsiifoodo tahay dee hanagu xidhida idinba kan caal weyday way noqotay qasab in la hadlo wada hadalladii innaga iyo xamar naga dhexeeyey muddo taagnaa baan dib bilownay wada hadalladaas waxay ku dhammaadeen halka baray waa ka degsantii waxaa warihii noqday oo weliba qolada xamar ay doorteen anna aan ku raacay oo naan diidanay markii horena in jabuuti lagu qabto fagaara lagu hadlayo shirkaa waxaa waday maraykanka oo weli dedejinayay shirkaa qolada jabuuti waxay ka ahaayeen gogashay dhigeen jeerkana way hayeen waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jabuutiba inay si dhexdhexaadnimo ah oo waayaranimo shirkaa ku hogaamiyeen oo aanay cidna dhinaca saarin ee nin waliba fagaaraha wixii u leeyimid ay si wacan meel isku cabiri karo lagala dhaysi karaa u dhigeen wixii ka dhacay iyo siduu ahaa idinku celin maayo oo goobjoog u ahayd waxaa ku xigtay muddo yar kadib in Kenya madaxweynahoodu uu ina marti qaaday iyadana wixiina dhex maray iyo wixii ka soo baxay iyo communique-ga waa haysaanoo idinku celin maayo taa waxaan u sheegayaa waxaa ka horreysay Guinea oonu sanadkii hore tagnay oo si wacan oo taatu la mid ah oo ka dharsan aqoonta Soomaaliland dhibaatada inay idin tahay haddaba walaalayaal waxaan wada ognahay oo inaan isu sheegeen imika laakiin u baahan in la xusuusino marka ay Soomaaliya maqasho Soomaaliland dal baa casumay ama dal ilaahay meel u sheegatay waxa la yaab leh cadaawadda iyo naca iyo talaabooyinka ay qaatay iska jir xorka waxaan isqabanayn marka ay hadlayaan ay dood keenayaan soddonka asagoo caalamka dhageysanayo waxay ummadda u sheegaan Soomaali ma kala maaranto walaalayaal waanu idin baahannahay dal isku mid ah waxaan weydiinayaa ninka bilga ku ogolaan waayay xaashaan lili bika xasi xumi waaya nin baa ku sooriyeeyay nin baa ku kalaameeyay dawlad baa hadday walaalnimadu jirto ay xamar ragga ka taliya sheegayaan ninka walaalka kalaameeya ee sharfa adigana ku sharfa inaad ma hadaqdaa lahayd laakiin waxaynu ognahay wixii dhacay ninka Soomaaliland kalaameeya ama wax la qabta inuu ilaa waan ku dagaalamaya oo cadaawad baan ka xigaa Soomaaliland waxaan leeyahay warkaayo coladaas kuma dhacayo dawladaha ina kalaameeya wuxuu ku dhacayaa waa inaga dadka waxa loo quuraya waa Soomaaliland waxaynu doonayaa inaan u sheego Soomaaliland ma tuluuga Soomaaliland muqdisho dadka ka taliya shacbiga muqdisho iyagaaba aftuuban dadweynaha muqdisho way ogyihiin waan arkaya waxa dhacaya dadka talada u haya iska dhaaf Soomaalnimo ay isu keenaan tallaabooyinka ay qaadaan waxa weeye to aanay Soomaali weligeed isku imanay iyo cadaawad weligeed alla kala geeyay iyo wax aan la isu quurin hebelow ninkaas aad salaantana walaalaanahay mirga iyo sharaf iyo bogaadi buu ka mudnaa وأركز كيري وحكي العين وأركز وحكي العين قريب شوتي وحكي دبي كنت بيسوي ويدي شركة قرطين يقول يبتين هذا ودي أي لوج يستوي واحد لوج سيد أن درنا كيري ويدي يعني حابة ضغط شوتي بحوالها شوتي كرسور واحد وفتي وودما هذا سلام بنا ودا ونا وفتي سعودي نحن إلى هاي السكوت هاي ما أعرف ولا أنا عن قارن موسي فقارة هاي نقول واحد يجلس شغالي haddana waxay ka dhacay dabooday waxaan taa ugu dheeraanay maanta muqdisho dawladii hore waqtigeedu u dhamaaday dawlad cusubna lama dooran sharcina uma kordhin haddana waa fadhiya waa maamulaya
Soomaaliland waxay diiday oo markii ay madaxtii la wada lahaa ay duntay ay ka doorbideen inay gaar u tashato oo tii halka cirkii arkay kama soo jeedaan soddonkaas sano waxay arkay wax lagu shaqay kara ma hadday soddonkii sano iyo gaar u baxday ninka maanta muqdisho jooga waqtigiisu u dhamaaday sharcigu ma kordhin waana xukuma qodobada la isku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo kamida oo mar walba idaacadda laga hadla waxa la isku haystaa baarlamaankii gobolada waqooyi matalaha cid soo dooranay cadaawadii hore iyo tii hore dhacdo waxa ka xunta maanta lagu leeyahay qaranka halka baarlamaankiisa fadhiyo ee dawladdiisa fadhiyo ee ummadiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof waliba maanta codkiisa qaatay doorashada diyaarka bal sababta xamar looga oranayo baarlamaankii matalaha baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nac iyo xumaan ahayn hal ay sheego shacabka xamar iyo dadweynaheedu iyaga aaba aftuur hore oo sheegay waxaan u sheegaynaa caalamka waliba xubnaha xamar la jooga ee muqdisho oo aanan garanayn qodobka ay halka ay ka joogaan xamar maanta ma dawladda istaawaya ma iyaga u taliya ma kii dhacayba haysta ma cid kale loo dhiibay waxaan u sheegaynaa waxa gardarraa in xitaa kuwa caalamkuna u dhageystaan ay ka dhageystaan oo ay ku ansixiyaan boqolkiiba baarlamaanka laga soo doortay iyaga laftooda qayb ka ah gardarrada lagu soo doortay waxa ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka Soomaaliya ee Soomaaliya jooga ee u dhiibanaya codkooda la noo tali nin dalkiisa ka fakad ka ah warad la idin turi maayo wax gelin maayo kana uu ka fakad marka iyaga laftooda si ay u aqbalayaan waxa cod idin sinay wax idin dooray wax idin bedelaya niman cidna ma tiri qolada Soomaaliland u dhalatay ee halka wax ka deeysan waxaan leeyahay idinka ceebid ku tahay xaga laga doortaa ceeb baad ku tahay midnimada deedaysan midnimada xaga u marsan ma barihin baa lagu doortay halkaad wax ka tagnaad wada ka carray taana wax ka tarimaysa waxaan u sheegaynaa iyagana sharciga lagu dhaqmaayay in la adkay doono waayo waxay noo galay
dimuqraadiya oo sharciga lagu dabaqo sharcigu nin walba ka sarreeyo nabadgelyo ah barwaaqo ah dadkiisu ku nool yihiin hodantinimo loo dhan yahay oo qayb quri lahayn oo aanay ladnaanta in yar ku koobnaanin iyo inay noqoto iftiinka aqoonta iyo ilbaxnimada ee ka soo dhex muuqda afrikada madow oo dhan iyo adduunkada taasi waxay nooga baahan tahay inaynu sukan iyo laaba ugu hawlgalno inaynu gaadhno higsiga iyo himilada hirka fog ka muuqda aynu tiigsanayno waxaanu ku tagi karnaa inagoo si dhaba niyadda uga hawlgalno shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul waarta barwaaqo iyo nabadgelyo waxaan mar kale ammaan iyo bogaadin u diraya golayaasha dhowaan xilka wareejin doona golaha wakiilada iyo golaha deegaanka Soomaalidu waxay tiraahdaa mahmaa caana jirta caayna oo aroos kal amaanna u dhimo nin kastoo la caay maanta inta la wada uraya allah hebel buu ahaay nin kastoo la amaanaya maanta aroos la waay maayo wax laga sheego walaalayaal inta golaha fadhidan aroos baa hadii waa caayni maanta ma idaa dhiman laakiin xilka hadaa banaysaan waanu idiin sheegaynaa ammaantiinii waxaa qabateen ee dalkan waa soo dhisteen in kasta ha la yidhmaado nin kastaa wuxuu doonaya ha yidhaahdo wax badan baa qabateen oo annaguna aan yiri ognahay ummaddiina yiri dhaliisha iyo turturka hadiida waa raagteenta waxaa leedihiin oo idaan nagala tegayn oo golaasha tegay oo idaan dalka kala tegayn oo intaanu kuraasadii dhabanayo isku maagne haddana aan leenahay walaalayaal waa laydin baayaa tegina waayo aragnimada dhowr iyo 10 sanadood ee golaha dalka maanta idinka waa aragsan wuxuu u baahan yahay garanaysa sharciyada garanaysa ninka cusub imika la soo doortay wixii aad soo jeexdeen oo dhan u dib u jeexaya haddii iska rab taagin oo idaan oran maayo tan horaa loo maray ka daa tan marayna dalkuna saas buu ku qabsaamaa markuu qofka waariga qofka la gaaro dhaqankeena maanta ku jiro iyo xeerka iyo xuduurfaan ku noolahay ayaana golayn in la yaan waa aragnimada la lumin xil kasta la hayo waa la daba taagay xil kasta oo qof loo dhigo waa la daba taagay teen badan uu joogo banay qaar baa waraayay reeb baan bariyaa waxba tamir reeb lagu rijo warday dawladda ku dhismayso waxay ahayd oo inu gaari doonaa insha Allah in la yiraahdo golaha wakiilada iyo kan guurtida iyo golaha kasta waa inuu korka la bedelayo badna jooga badna laba sameexood bedela oo kolba bar waa arag si fadhiyo sayna warino luminade iyo meel walba laakiin dhaqanka aynu marayno iyo itaalka aan leeyahay ayaa maanta ina marinaya in golihii dhamaa nin quri dib isu soo shaqo intaan ogahay golihii dhamaa ma aha waa la dhinacay ma aha waa xumayseen war wax badan ma dalka soo qabteen idinka iyo kuwa dawladda hoose way ka mahadnaqaynaa waxaan soo dhaweynay waxaan soo dhaweynayaa golaasha cusub soo bixi doona horta ilaahay qaar khayr lahayd nooga dhaw waa aragnayna wala daba joogna ka fogaan maysaa ninka sharaxay ee intaas u soo maray ee waxa soo imtixaanka soo gudbay dabcan waa qof xilkasa qadarin leh suul bal soo hubiyay igana ilaahay idinkiisa allah u fuday hawsha waan soo dhaweynaa waxaan ugu dambaysiinayaa oo ugu mudan maanta waa 8 March waa maalintii waa maalintii haweenweynaha adduunka oo dhan ay lahaayeen ee ay u dabaal degaan oo ah dumarku inay dhibaatooyin badan oo xuquuq badan oo qaar aad u leeyahay ay ka cabanayaan haweenka muslimka inta badan diinta waxooda u goysay iyaguna waa ku raali laakiin cabasho badan bay inoo sheeganayaan oo daw ah oo aynu wada garaawno laakiin haddana aynaan inta badan ka fiirin haweenka Soomaaliland iyo haweenka adduunyada waa habareerina waa maalintii 8 March waxaan u rajaynaynaa horumar iyo xuquuqaha ay wargamayaan ee diinta islaamku ogoshahay dhammaantoodba inay gaari doonaan
waanu ku garab gelina halkan waxaynu uga ducaynaynaa maanta shalay magaalada shil baa ka dhacay aqal ayaa gubtay guri ay ku jiraan arday 200 iyo dheeraadihii aad iyo aad baan ugu nasiib badanay ilaahay badbaadiyey ciidamada daldaliskuna waa gurmadeen iyo booliisku caruurtaasi guri fooqay ku jirtay waa la wada socotaan sida wuxuu dhaceen ilaaha aad iyo aad u sahlay caruurtii wada nool yihiin wixii gaaray waa dhaawac aan weliba badankoodu in yar mooyee ay dhaawac fudud yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta